واسمع لنا سما وديار قروبة هنا إنه عدو ودلك كسرنا فدي دم مجرو دفاع دم بانجلي إنه الله إنه كوي ماني أنا متفت هرب الله سبحانه يا دي الله وتعالى waxaa socda guluf dagaal oo culus kaasi oo ka duwan kuwii hore markan waa geesiyaasha xoogga dalka oo aysan wehelin Amison waxaana ka go'an inay cagta mariyaan argagixisada ku dhuumanaysa goobaha farakutiriska ah ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose maadaama degmooyinkii iyo deegaanadii ay ku xooganayeen ee gobolka laga saaray Shabeellaha Hoose waxa uu ahaa halka argagixisada ay ka soo abaabuli jireen qaraxyada lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah si ay dawladdu uga taqalusto kooxdan ayayna xoogga saaraysaa inay gobolkan oo guud ahaan gacanta ciidanka soo galay marka laga reebo tuulooyin yar yar isla marhaantaana uu noqdo meel aysan gabaad ka dhigan nabadiidka baxsadka ah innaga raasanayna meelaha ay ku jiraan ku dhuumaalaysanayaan waa ugu tagaynaa hadii Allah awood leeyahay isa saarnaan mayno hadii Allah awood leeyahay sanadkan gudihiisa waliba bilaha hore dhinac baynu kala dhacayna maalmo ka hor geesiyaasha soo majeystayaasha ee xoogga dalka ayaa xoreeyay deegaanka Janaale oo muddo argagixisada ay ku dhibaateynayeen dad shacab ah waxaana ciidanka halkaasi ay ku dileen maleeshiyaad badan oo ay ku jiraan horjoogayaal sare maleeshiyaadka al-shabaab ayaa bilaabay inay isaga cararaan degmooyinka Kuntuwaari iyo Sablaale kadib markii ciidanka xoogga dalka ay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaas oo ujeedkoodu yahay sidii argagixisada looga saari lahaa guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose anoo ku kalsoon tababarkiina kartidiina iyo qaabkaad cadowga u wajihi kartaan anoo ku kalsoon waxaan aaminsanahay marka halkaan timaadeen meelihii ay joogeen inay ka dhaqaaqeen ciidanka xoogga dalka ayaana waxiga degmooyinka Kuntuwaari iyo Sablaale ka bilaabay howlgallo lagu baacsanayo haraadiga maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo inta badan haatan faaruujiyay degmooyinkaasi sida uu idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay sareeye guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ayaa sheegay in maleeshiyaadka ka cararay Kuntuwaari iyo Sablaale inay gaareen gobolka Jubbada Dhexe isla markaana ay uga daba tagi doonaan ciidanka xoogga dalka ayaa kordhiyay howlgallada ka dhanka ah nabadiidka al-shabaab taasoo looga leeyahay sidii gabi ahaanba nabadiidka looga saari lahaa guud ahaan dalkeena Soomaaliya waqtigoodu waa soo dhamaaday mana u suurtageli doonto insha Allah ta'ala inay sii heestaan marka waxaan isleeyahay in arintaas ay runtii si dhab ah inooga go'an tahay kana shaqay doono doonatee dactiyo qaraar kabaho doonatee dactiyo qaraar kabaho aagi baa dhacay tugagiyo tukuwa ku diriira meydkaage ule waran ku sii dayne tugagiyo tukuwa ku diriira meydkaage ule waran ku sii dayne dila